grammar ayaan ku baranaynaa qaybtan. Waa qaybta ugu muhiimsan, waa qaybta ugu adag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Grammar. Waa qaybteennii grammarka ahayd, waa qaybteennii naxwaha ee ugu muhiimsan barashada luuqadda sidan hore u sheegay. Waxaynu weli ku jirnay pronouns magacyaalada. Aan u gudbo ciwaanka cashirkanaga ah use adeegsiga ama isticmaalka of personal pronouns magacyaalada shakhsiyaadka ah. As subject ayagoo u shaqeynayo I cannot eat ma cuni karo all this food cuntadan oo dhan. I cannot eat ma cuni karo all this food cuntadan oo dhan ma cuni karo. Haddaba sidee bay subjectyada kale u qaadan karaan ama loo adeegsan karaa as sentence jumlad ahaan? Ma waxbaa iska bedelayo mise waxba iskama bedelayo? Aan ku baranno dirsigan insha Allah. We cannot eat. No change. Hadda first person oo plural ah waxba iskama bedelin. We cannot eat all this food. The rest of the sentence sideeda u taaganta jumladda intii ka dhibneed. I cannot eat all this food. We cannot eat ma cuni karno all this food cuntadan oo dhan. You cannot eat ma cuni kartid. He cannot eat ma cuni karo isaga. She cannot eat ma cuni karto ayada. It cannot eat ma cuni karto. oo it grammatically ahaan marka loo qeexo ee noqonayso impersonal pronoun oo things loo isticmaalo shayada iyo xayawaanaadka baa la yiraahdaa marka asaga it, but not for people. Dad ahaan looma isticmaalo. It cannot eat ma cuni karto all this food. What about ka war haddii aan adeegsado proper nouns magacyada qaaska ah? Ali oo kale markaan ka soo qaato cannot eat ayaan dhahayaa ma cuni karo. The dog eyga cannot eat ma cuni karo. The cat bisada cannot eat ma cuni karto. This is the exact usage. Isticmaalka saxda waka. As object markaan u soo qaado mafcuul ahaan ama la yeela ahaan, object ayaa loo yaqaanaa mafcuulka ama la yeelaha ama la asiibaha. Hanata George ninka waa magac waa proper noun exactly. Waa proper noun. George, Ali, Abdi, Ahmed, Susman, Dahir waa proper nouns baa la yirahdaa grammatically luqadda Englishka. Waa noun markay yihiin ismi ayaa dan waxaa la yiraahdaa proper nouns inay yihiin magacyo khaas ah. So waxaa la yidhi George knows me wuu yaqaanaa aniga wuu garanayaa. So kalimadda knows waa infinitive verb in English grammar, mean waa object mafcuul oo first person shakhsi koowaad noqonayso oo ka timid I exactly subjectigeeda ahaa objectigeedana noqonayso me. oo jumlad ahaan ma u geli kartaa meesha marka George knows I ma la dhihi karaa? No, it's incorrect. waa qalad. ma fiicno mana ku haboono loomana isticmaali karo. laakiin qofkan grammarka waxba ka garanaynin hadda wuxuu doono isaga isticmaalaya. George knows me. George wuu i garanaya. The boy wiilka soon found us. isla markiiba wuuna ogaaday ama na helay. So as waa objective pronoun-kii mafcuulkii magacuyaalka ahaa oo wadarta ahaa wey. Subjectigiisuna ahaa we. The good old lady marwada weyn ee wanaagsan old lady ama qadiimiga ahayd duqda ahayd still remembers you. weli way ku xasuusataa. waa cajiib. waa sentence oo la yaab leh waa the good old lady. bal fiiri meesha asaga the good old lady laba adjective baa la israaciyay good old. dadka qofkii luqadda garanaya markaas wuu fahmi karaa qofkii kalena maya. Lady waa noun. Still remembers us ama remembers you ama remembers me ama remembers him. weli way xasuusataa isaga
weli wayna xasuusataa annaga marka la isticmaalayo objectigaasa muhiima inuu imaado. The good old lady still remembers you. The good old lady still remembers me. weli way xasuusataa. Still remembers them. weli ayaga way xasuusataa. haddii aan dhaho ka waran George knows her. George wuu garanayaa iyadii. George knows it. wuu yaqaanaa. eygii guriga caanka ka ahaa oo la yaqiinay oo kale, dameerkii hebel ahaa oo muunka ah oo la garanayo oo kale bay usoo qaadan kartaa. Them markay noqoto waa ayaga oo object ah oo ka timid ayadana they. Subjectigeedu waa they, them no object. The good old lady still remembers them. weli way xasuutaa ayaga. Thanks. ألف لا كنبي ألف لا سنبي ألف لا قلي